halkan waa halkii uu qaraxa ka dhacay hordhow ama saacad ka hor qiyaastii waana isgoyska sayidka ama barta control ciidamada ilaaliya madaxtooyada ay ku leeyihiin taalada sayidka ee Muqdisho sidaad aragtaan sayidkii waa ka halkanna waa halkii uu gaariga ku qarxay qaraxa ayaa halkan ka dhacay waxaana jira gaariga qarxayna waxa safka ku jiray baaritaanka halka uu qaraxa ka dhacay isgoyska sayidka qaraxa markii uu dhacay waxa xusid mudan durba goobta waxa soo gaaray ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliiska iyo sidoo kale hay'adaha kale ee qaabilsan daadguraynta dhaawacyada iyo meydadka bajaajtan waxay ka mid tahay ama gaadiidkan waxa ka mid yahay kuwa dadkii saarnaa ay halkan ku geeriyoodeen ilaahay ha u naxariisto warbaahinta ayaa in muddo ah waxa ay ahaayeen kuwa loo diidanaa halka uu qaraxu ka dhacay waxaana hadda daqiiqado ka hor loo ogolaaday wariyaasha inay soo galaan oo muuqaalada iyo sawirradaba ka qaadaan sida uu qaraxu u dhacay burbur xoogan ayaa jira waxa xusid mudan qarax ka dhacay halkan oo ka horeeyay qaraxan masaajidkan ayaa ku burburay oo sayidka u dhow hasaahate hadda masjidka waa uu bad qabaa inkastoo uu jiro burbur kale oo dhismayaasha kale wadada u dhow uu soo gaaray gaadiidka sidaan hore idinkugu sheegayna safka ku jira ayuu ka mid ahaa gaariga qarxay gaadiidkii kale ee u dhawaa gaarigan gubtay ayaa ka mid ah oo dadkii saarnaa la tuhunsan yahay inay qaraxa ku dhinteen way badnaayeen burburka gaadiidka ciidamada amniga ayaa muhiim u tahay waxay ahaayeen kuwo diidanaa in goobta la soo galo marka laga reebo gaadiidka ambalaasta iyo dadka kale ee gurmanaya waxyaabaha xanuun kale ee sida gaarka loo sheegay waxaa ka mid ah gabar ku sugnayd halkan oo ah goob dumarka lagu qurxiyo ama timaha loogu hagaajiyo in dhaawac culus uu soo gaaro dhanka caloosha ah sida qof mas'uul ah oo idaacadda kulmiye ee Muqdisho uu sheegay dadka hadda waa kuwa goobta loo ogolaaday inay gudaha u soo galaan badi waxay baadigoobayaan eheldoodii oo ay halkan ku tabayaan gaar ahaan kuwii hareeraha wadadan ku ganacsanayay ayaa kuwa ugu badan ee la raadinayo sidoo kale waxaa xusid mudan gaadiidkii badnaa ee halkan ku sugnaa in badan oo ka mid ah markii qaarkood ay si aad ah u burbureen dadkii saarnaana ay dhinteen durba goobtii waa laga qaaday waxaa ku sugan goobta taliyayaasha ama saraakiisha booliska ee degmooyinka Waaberi hodan iyo howlwadaag sidoo kale saraakiil kale oo dhanka militariga ah ee ilaalada kontaroolada madaxtooyada laga galo ayaa iyaguna ah kuwa ku sugan ma cadda ilaa hadda nooca gaariga qaxay iyo waxa uu ahaa hasaahate waxa la sheegayo ama xisada mudan ayaa ah in gaariga uu ka mid ahaa kuwa safka baaritaanka bartan ee sayidka ama halka laga baaro gaadiidka dhanka madaxtooyada u gudbaya ee sayidka gaadiidkii ku jiray safka ka mid ahaa gaadiidkii burburay ayuu ka mid yihiin ama birahan ay ka mid yihiin sidoo kale la sheegayaa inay burburku uu qayb ka ahaa علي علمي صلاة وكمد ورياش إذاعة كلمية يا إلى جوجا أو يسقوا ضدك مركي هو رسول جاري كمدها علي إن ده المحطة على تيميديا داوع. أنا عبد الغني وما صنتهاي وحن إمد جوبتان حلق وقرح يلعي كذب وحن به كوارك ضد ميد أو كدواد أنت اللي حقيقي أما به يقرتين أفرق قفود يلا وقفود داوعة سيدو كان عبد الغني واحد جرا جواري سيدي إن ده قد يا أركان جواري جوبت كوبا بعدين معناها كدواد جد جواري عبد الغني وسوق الواحد عثمان قابت حتى أتجنن وقرح كل عي وقابت وقرح كل عي بياقد سنت كي هري جارجي قرح وروح اسمي داميها ودي قابت وقرح جيستي واي مرك عد قص إنك سو قرح على علمي وما سنت هاي سيدا إذا مقطع داود يال أما صاحبة النقل داونا يبرتا فيسبوك كينن وهاي اللي كان سعنا يا نظافتي ودربك باللعبتي هالكي وقرح وقرد عي وكون برها أما هذه جديد كقرحية لسروري جاري قرح كواي كم ومية ملتوه مية مسوالها يعطينك أنت باورتان كلي يا لم بيا لم تدور كمية جاري نوع اسمه لا شيء نوع اسمه لا شيء جاري قرحية ويا هاي مجلس إلا هذا قبرنا إنك جديد كأمداد كمدة حبناها لامها منيجا وجاري الشيء حصلت جاري وحال حقيقيين وكمدها قوة صفقة لباري كوجري dad intay baa jira in ka soo tiro rasmi ah aan la haynin sidoo kale dad dhaawacmay ayaa jira oo iyaguna
gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalastu ay qaadeen saaxiibayaal halkan waa KNN wixii warar ah ee ku soo kordha qaraxan ama faahfaahin ah ay hay'adaha la amnigu bixiyaan waad la socon doontaan.